Welcome to Khalid Nia official video. Please subscribe, comment, share. daawadayaal muuqaalkeena koobaad waa nin ay naftiisa khatar gashay ama nasiib lahaa kadib isagoo ku jira tartanka noocan ee wadooyinka lagu ordo hase yeeshee waxa si kadis uga soo horbaxay gaadhi isagoon arkayn hase yeeshee waa uu ka badbaaday sababta darteed waxaan u odhan karnaa ninkani xagga qadarka ilaahay ayuu ku badbaaday nasiib ayaanu lahaa daawasho wacan daawadayaal muuqaalkeena labaad waxa uu noqonayaa nin ciyaaraya kubadda loo yaqaano baseball waxaanu la ciyaaraya asxaabtiisa waxaana ay kaga dhici gaadhay wejiga kadib markii uu saaxiibkii ku soo celiyey hase yeeshee waxa uu iskaga badbaadiyey gacmihiisa taa waxaynu odhan karnaa ninkan nasiib ayuu lahaa sababtoo wuxuu kubaddii kaga badbaaday nasiib inay wejiga kaga dhacdo daawasho wacan muuqaalkana daawadayaal muuqaalkeena saddexaad waa koox dalxiisayaal ah kuwaas oo ku sugnaa badda dhexdeeda kuwaas oo saarnaa doon hase yeeshee waxaa ku soo baxay dhibiri welibana kamarada ayay ka duubayeen iyagoo ku dalxiisay badda dhexdeeda taas waxay khatar gelisay naftoodii iyagoo ku badbaaday si nasiiba waayo hadduu dhibirigu ku soo dhici lahaa laga yaabay inay doontu degileed daawasho wacan muuqaalkeenan xigaa daawadayaal waa wiil dhallinyaraha kaasoo wadda socday hase yeeshee waxaa ku dhici gaadhay god ka mida godadka waddooyinka laga qodo kaasoo ku xidhnaa dabool jilicsan isagana waad wada aragtaan nasiibka ku badbaaday daawadayaal muuqaalkeena kale waa isaga laftigiisu waa nin nasiib lahaa kadib markiiuu ka badbaaday isagoo daawanaya tartanka gawaadhida ag taagnaana waddada dhinaceeda ayaa waxaa si shil ah ugu soo dhacay gaadhi ka mida gawaadhidii tartanka ka qayb galaysay waxaanuu kaga badbaaday sii faracidiyahooda isaga laftigiisu nasiib ayuu lahaa waayo waxa uu ka badbaaday gaadhigii shilkaaha ku dhacay ee waddada ka soo baxay daawadayaal muuqaalkeena kale isaga waa nin kale oo isaga laftigiisu nasiib lahaa kadib markii uu wiilkiisu ka badbaadiyey kubad kaga dhacaysay madaxa taasoo halis gelin lahayd amba meel khatara oo madaxa kaga dhici lahayd waxay ka daawanayeen koob lagu ciyaaro baseball waxaas kubadda si khatara usoo tuuray mid ka mida dadka ciyaarayay hase yeeshee waxaa ninkii ka badbaadiyey kubaddii inay ku dhacdo wiilkiisa daawasho wacan daawadayaal muuqaalkeena kale waxa weeye nin gaadhi dhigtay meel saxara ah kaasi oo taagnaa meel wadda dhinaceeda hase yeeshee waxaa kaga soo baxay meel waddada dhinaceeda gaadhi kale oo xawaaro aada ku ordayey hase yeeshee ninkii wuxuu ku badbaaday si aad iyo aada u halisa bal daawasho wacan sida uu ninkaasi ku badbaaday isagana daawadayaal muuqaalkeena kale waa nin dul ordayay biriishkaasi oo ku yaalay meel aad iyo aad u dheer waxa ninka ku xidhnaa xadhig hase yeeshee wax xadhiggii uu ka furmay si aan la filayn ayuu ka furmay kaasoo halis gashay naftiisii waayo hadduu biriishka ka dhaco waxay noqon lahayd maalintiisii ugu dambeysay adduunka bal daawasho wacan muuqaalkeenan xigaa daawadayaal waa kubadda cagta meel lagu ciyaarayay dhacdadu waxay u dhacday sida tan kubadda ayaa la soo laagay golhayaha ayaa badbaadiyey birta ayay ku dhacday
hase yeeshee ciyaartoygii kubadda daba ordayay ayaa lugtiisa goolhaya ka jari gaadhay madaxa. taasina waxa uu goolhaya ay ku sababi gaadhay in maskaxda wax gaadho, hase yeeshee waa uu ka badbaaday. sababta darteed waxaa la odhan karaa goolhayahaas wuxuu ahaa goolhaye aad iyo aad u nasiib badnaa.